Asalaamu calaykum, waa qisadii Sahra qaybtii labaad. Kusoo dhawaada. waan idin salaamay asxaabta kanaalkayga ku xiran. Hadda waxaan dah ka qaadi doonaa qisadii Sahra sirta ka dambeysay. Asalaamu calaykum, waa qisadii Sahra qaybtii labaad. Kusoo dhawaada. Weli waxaan joogaa gurigii hooyo iyo aabbo isoo koriyey aan ku noolaa, laakiin qaabkee lila dhaqmay. Ugu dambeyn hibo way isbedeshay, waxayna ii canaanataa qof shida guriga shaqaale ka ah camal. Laakiin sidaas ay tahay, aniga waxay ii tirsato hibo waan qaban jiray, sababtoo ah yaraanteeda ayay soo dhibtooday. Laakiin maalin ka mid ah, anigoo howsheeda guriga iska wato, waxaan arkay Sahro iska qoslaysa ee TV iska daawanaysa. Anigana si dhaqsi ah ayaan howsheeda ku dhammaystay. Kadibna waxaan fadhiistay hibo agteeda, laakiin hibo aad ayay iisoo fiirisay, igu tiri orodo kac cunta ii. waan gaajeysanahay orodka ee cunta ii keen. Markaasay tiri may, waan daalanahay maanta ee cunto inaa orod adi doono cunto aad cuntid, aad baan u xanuunsanahay. Sahra ayaa hibo ayaa ku tiri markaa miyaadan ogeynin waalidkaaga saxda ah inaysan gurigan ku nooleen. Waxaad ka tahay kaliya shaqaale, waa inaad guriga howsha dhan qabataa mar walba. Hataa haddaad xanuunsan tahay, waa inaad howshaada dhammaysataa, adiga qabsataa, cid kaloo ku caawinayso ma jirto. Aniga hay u tashanin. Hadallo aad u xun ayay hibo ku tiri Sahro, aad u fool xun ah. Kadibna Sahro aad ayay u uusay, aad ayay u murugooday, aad ayay u naxday hadalka hibo ay ku tiri. Kadib Sahro waxay ku fikirtay in ay guriga ka tagto. Fursad ayay waxay u heshay hibo oo albaabka ka baxday. Kadibna iyadana way baxday suuqeeda iska aaday. Sahro waxay go-aan ku gaartay inaysan guriga dib dambo aysan usoo laaban. Waxay wacatay saaxiibkeedii muddo ugu dambeeyay. Markay arrinteeda u sheegtay ayay ka tagtay. Kadibna waxay wacday asxaabtiisa mid ka mid ah. Asxaabkii ayaa ka qabtay Sahro. Waxay ku tiri Maxamed aabe, muddo ayaa igu dambeysay maan arkine, ee maxaa ku dhacay? Nambarkiisana ma qabanaye, ma wax iga sheegtid ayay ku tiri. Markaasuu yidhi ilaa ma ogid miyaa Maxamed waxa ku dhacay? Markaas ayay Sahro naxday, oo maxaa ku dhacay, ma ii sheegtid, maxaa galay? Markaasuu dhahay Maxamed maanta ayuu guursaday. Sahro aad ayay u naxday arrintaas markay maqashay. oo maanta guursaday aniga asiis balanaaba naga dhexeysa inaan is guursanay, maxaa ku dhacay? Ma ogi. Markii igu dambeysay wuxuu i dhahay ani iyo Sahra waa kala tagnay. Markaas ayay Sahro niyadii hore ugu sii jabtay, aad ayay u murugootay. Waxay tiri dadkii aan jeclaa ii dhawaayo dhan sidaan ayay ii galeen, xataa kiin jeclaa oo iga tagay. Sahro talo meel ay ka bilaabtay ayay la'dahay fikir. Markaas ayaa waxaa soo wacay waalidkii soo koriyey. Kadibna moobilkii ayay webiga Niil ku tuurtay. Kadib iska soo dhaqaaqday ayadoo war i waayo meel ay u socoto aysan ogeynin, dhibaateysan, madaxeeda yacni ka buuxo naceeb. Kadibna shil ayay ku gashay wadada dhexdeeda. Way suuxday Sahro, aad ayay u suuxday. Kadibna markay soo naaxday waxay aragtay iyadoo sariir iyo qol wada cad ah ku jirto. Markaasay dareentay inay isbitaal jiifto. Islaan kaloo meesha taagan ayay aragtay oo ku tiri gabadheeda sidee tahay, ma caafimaad qabtaa? Markaasay ku tiri Sahro haa waa caafimaad qabaa. Waa caafimaad qabaa ayay ku tiri Sahro. Islaantii ayaa ku tiri gabadheeda laamiga ayaad soo goosay, kadibna aad hoosta ayaad igu soo dhawaatay, gaarigan waan kontrooli waaye. Markaasay ku tiri Sahro dhib ma lahan, waxa yacni ku talgal umadan sameynin, shil ayuu ahaa. Markaasay islaantii ku tiri wax waalid ah ama walaal kuma joogaan miya? Maya ayay ku tiri Sahra. Marka cidna ima joogta ayay ku tiri Sahra.
markaas ayaa islaantii waxay kusoo celcelisay anaa iracaysaa ee gurigii ayaa ila tegaysaa. Marka dambe Sahro way ka ogolaatay, islaantii ayay waxay u raacday gurigeedii. Waxay ku tiri Saamiya, gurigan kaligaa miyaa ku nool? Saamiya waa islaantee. Haa ayay ku tiri. Markaasay su-aal weydiisay oo ku tiri oo sabab. Islaantii way ka jawaabi weysay, Sahro way ka joojisay su-aasha. Kadibna iyagoo cunteynayo, Sahro iyo Saamiya aad ayay isku fahmeen. Sahra kadibna waxaa imaaday Saamiya walaalkeeda Jalaal. Way isbarteen Sahro iyo Jalaal. Saamiya iyo Jalaal waa walaal. Jalaalna wuxuu dhalay wiil kale oo Sahro aad u nacab. Kadib ayaa iyagoo maalin wada fadhiyo uu ku dhahay xafladaa jirtee ee xafladda ma naga soo qayb gashid. Waxaa dhahayo Jalaal. Kadibna Saamiya arrintaas aad ayay ugu faraxday, laakiin wiilkii ayaa ku jawaabay oo halkan xafladda haddaan geyno dadka maxaan ugu jawaabnaa oo maxaan dhahnaa qof guriga sheey ka ah ayaan xafladda ku casuumnay. Sahro aad ayay u murugooday. Kadibna eedadii ayaa carootay ku tiri waryaa Amos, gabadhan waa gabadheeda oo kale, familka ayay ka mid tahay, ayay Sahro ku celisay. Kadibna hooyadii waxay go-aan ku gaartay in ay Sahro u bixiso gabar hadda ka hor ay dhashay Liin. Kadibna Sahro aad ayay arrintaas ugu faraxday, laakiin wiilkii kama daadigan, aad ayuu u carooday. Kadib Jalaal ayaa ku dhahay waa fiican ayaad sameysay maadaama wayna istaaheshaa gabadha. Kadib Sahro waxay isku diyaarisay xafladdii inay aado oo loo balamiyey. Iyadoo meesha iska fadhiso ayaa imaaday Jalaal wiilkiisa. Kadib ayuu ku yiri maxaa halkan ku keenay oo maxaa ka rabtaa meeshaad, maxaa ku keenay, miyaadan xishooneynin? Maxay ku tiri maxaa ka badaa? Asoo qoslayo ayuu ku yiri familkan waxaad usoo gashay lacag dartiisa, ee lacagta aa u baahan tahay sheego anaa ku siinaya, ee naga dhexbax ani iyo familkeyga. Sahro aad ayay u uusay, aad ayay u murugooday, aad ayay u xanaaqday. Kadibna waxaa imaaday Jalaal wiilka aabihiisa. Sahro way iska tagtay. Kadib Sahro iyadoo saas u ooneyso mar walba murug ay ku jirto ayay waxay isdhahday dee ka tag gurigaana. Kadib waxay gashay shil kale. Kadib waxaa la geeyay Sahro isbitaalka. Shilka kadib waxaa imaaday wiilkii Jalaal. Kadib ayuu isbitaalka ugu imaaday. Wuxuu ku arkay Sahro qolka camaliyada ku jirto ama khaliinka ku jirto. Aad ayuu u murugooday. Kadib uu dhahay waxaa sameeyay waxay ahaayeen wax qaldan. Aabihii ayaa ku yiri na mari ee qolkana geli aan wada hadalnee. Qolkii ayay soo galeen. Kadib ayuu ku yiri waryaa maxaa ku sameysay gabadha oo hadalkan saan u kulul ilaa in nafsadeeda ay ka goosay gaarsiisay. Markaasuu asoo xishoonay aabihii ka jeestay ku dhahay wax kuma sameynin, waad ogtahay waryaa maxaad isku dadabaalinaysaa, waxaad sameysay wax qaldan bay ahaayeen, ma ii sheegtid maxaad sameysay? Aabihii aad ayuu u xanaaqay. Ninkan afkiisa hadal uu kusoo bixi waa ka tagay aabihii. Kadibna tartiib ayuu fadhiistay asoo ka fikirayo ayuu wuxuu soo xasuustay eedadiisa oo dhashay gabar aad u qurux badan. Markaas Jalaal wiilkiisa wuxuu jiray 10 jir. Markaas ayuu soo xasuustay asoo dhahayo gabadha magaceedu waa Liina, gabadha hadda magac la siiyay. Kadibna ayuu dhahay gabadhan hadday weynaato anaa guursanayo. Asoo soo baxay isdhahay waalidkii iyo Sahro iyo raali geli ayuu wuxuu arkay hooyadii iyo eedadii iyo aabihii oo wada hadlayo. Aad ayuu u shoogay, wuu naxay. Hooyadii waxay ku celcelinaysaa gabadhan hadda joogto waa gabadheeda Liin, markii yareed aan waanayay oo saxda ah waa gabadhan. Wiilkii aad ayuu u yaabay oo u naxay. sheekada inta dhiman waxaad ka daawan doontaan qaybtii 3 insha Allah, anigoo ah Ibrahim. halka aad ka daawanaysaan waa Ala Official. Salaam calaykum.